magaalada Ceerigaabo waxaa markale dib u bilowday mudaharaadkii ilaa maanta ka dhacayay dadweynaha magaalada Ceerigaabo waxaa imika markale dib u bilaabeen mudaharaadkaasi sida idin muuqata ciidanka militariga ayaa hadda la soo galiyay waxay kala dareerinayaan dadka ciidamada booliiska ayaa meesha laga saaray mudaharaadadii saacadii la soo dhaafay magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka dhacayay waxaa ku dhaawacmay hal qof oo shicib ah inta la hubo waa la dhici kartaa in cid kale oo dhaawacyo ay jiraan ciidanka militariga ayaa soo galay goobtaas si ay imika u kala dareeriyaan mudaharaadayaasha waxaana meesha laga saaray ciidamada booliiska Ceerigaabo ciidanka militariga ayaa imika la soo galay waxaana kala dareerinayaan mudaharaadayaasha ciidamada militariga qaybahooda kala duwan ayaa la wareegay imika ammaanka wadooyinka Ceerigaabo oo ay ku mudaharaadayeen militariga ayaa la wareegay waxaana kala dareerayaan ciidamada militariga mudaharaadayaasha ciidanka booliska gebi ahaan waa laga saaray mudaharaadayaasha magaalada Ceerigaabo ayaa mar kale taayirro waxay ku shideen wadooyinka halbowlaha wadada tani waa wadada marta inta badan isku xidhan laamaha dowladda waa wadada beerta xurriyadda ee uga marta shacabka taayirro dalcaya ayaa lagu shiday mar kale mudaharaadkani waa imika dib u bilowday xaaladda Ceerigaabo waxaa maanta inta loogo ruux ayaa ku dhaawacmay ciidanka booliiska ayaa laga saaray halkan ay mudaharaadayaashu soo galeen waxaana imika halkan la soo geliyay ciidamada kala duwan ee militariga kuwaasoo lagu amray in ay iyagu ammaanka sidoo kale Thank you.
السلام عليكم مقعدة على أحمد محمد والله ده درين كان سوق اللي هي اللي نقدر نقول سومال لنا موجة لكن كان ولا سابقة لا حدو كوسنا ولا عركاو أما هالكاي وكان أما أنا قاعد بمن هذا ما قال ليس أنا اللي على ستين ما شاقي ما تقول زعيم ويا كلا قد وريت رجعنا شد قرا ورا لا قد هاي دولة هذا لا يسوع مصبحين يا رجل عدالة بين الدورين الله ما يبيعش أرجعه